Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kulligiina waa idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan. Marka faylkan aan delete gareeyo aan soo celiyo wax yar hal ii dulqaato. Sida ujeediin kuwan cashirkeena maanta waxaa waaye ransomware-ka waaye. Sida u bixin lahayd faylashaadii soo laabani doonaa ma heli doontaa. Marka haddii aad fiirino hadeertaan waxaa idin tusaa sidii aad ku bixin lahaydeen markii aad desktop-ka imaadidne safe mode ahaan sida u saari lahayd. Haddana desktop-ka marka imaadid intaan antivirus aa fureysaa. Antivirus-kan waxaa waa Avira aan lahaa. Waa antivirus oo free waa soo download gareysan kartaa. Ransomware-ka ayadaa kaa celinayso. Kanna waxaa waaye waa paid version waaye oo lacagaa la bixiyaa sanad kasto. Laakiin 30 days ay ku siinayaan. Kan waxaa waaye waa Malwarebytes anti-malware oo anti-ransom ah. Kanna waxaa waaye Secure A+ aa lahaa. Waa antivirus khatar ah. Qof kasta oo videogan daawanayo waxaa rabaa inuu soo download gareysto. Waa antivirus khatar ah. Wuxuu haystaa 12 antivirus gudaha ku jirto engine ah. Kadib online lacag uma baahno wax dhan kaaga baahno wuxuu u baahan yahay bas qad waaye. Qad hadaa haysatid antivirus-kan wax kale uma baahnid kuwan kale ma u baahnid. Avirana soo gasho isticmaal free waaye. Avira antivirus waaye. Avira ransomware-kana way kaa celinaysaa. Marka sida ujeedid saddexdan file waa ransomware. Ransomware-ka sida ujeedid hadda filekan qofkii arko muxuu isdhahaa hadeertaan waa application muxuu isdhahaa. Software-kan waxaa waaye waa document isdhahaa. Kanna waa laga yaabaa kuwan kale. Kan sawir waa inaa isdhahdid laga yaabaa labadan kale waa ka shakin kartaa. Siduu kugu dhacaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad website tagtid. Website-kaas oo ka buuxeen wax oo malicious ah. Marka waxaa laga yaabaa markaa wax taabatid in uu isla markiiba virus ku soo kiciyo. Isla viruskaas adiga iska jara isdhehaysaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu systemkii ku dhaco oo encrypt gareeyaa laga yaabaa. Waxaa kaloo dhici karto saaxiibkaa ama qof aad istaqaaniin ama qof familkaaga ka mid ah inuu virus ku dhaco. Viruskii oo qofkaas emailkiisa uu ka soo diro. Waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan emailka galno iska jarayna bis waxaa waaye ileen computerka anaa iska leh mararka qaar. Markaas saaxiibada iyo dadka kugu jira emailka uu u diraa. Hadhowta saaxiibka filekan markuu arko wuxuu dhahaa niyow Jaamac iyo Maxamuud iyo Cali iyo waxay kuu soo direen filekan oo khatarta bal fur bal. Marka asagana furo isla asagana wuxuu noqonaa victim uu noqonaa. Marka haddaa ujeediin faylasheena waa inta haddaa idin tusiyo. Haddaa idin tusiyo picture-adeena waa kuwana. Picture-adan kulli waa soo koobiyeyna desktop-ka soo dhigaa. Wixii dhici doona fiirinayna. Desktop-ka imaana paste dhahaa. Sida ujeedid faylasheena waa kuwana. Music haddaa fiirisid kana systemkii waa caafimaad qabaa sida ujeediin. Waa clean machine waa. Haddaa aragtid inta haddaa taabatid software mujida meeshan. Process-kan haddaa tagtid kulli waa kuwana. Saa ujeedid. Marka haddii computerka marka sidee ugu prevent gareyn kartaa sidee uga celin kartaa inuu ransomware-kan ku helin. Fadlan systemkaada markasto update garee. Systemkaada crack systemkan la dhahayo. Soomaalida waxaa arkay waxay ku dhahayaan system waxa igu jiro Windows 7 igu jiro ka soo qaad. Windows 7 kaasna waxaa waaye product key uu leeyahay activated waaye online-kay tagayaan crack ay soo download gareysanayaan. Crack markay soo download gareystaan system Windows waxay ku shubanayaan 10 laga yaabaa iyo crack naftirkiisa xataa asaga naftirkiisa problem ku keeni karaa. System sida ujeedid kan hadeertaan haddii aad tago aad ku dhufto properties hadaa dhahno. Inta sida ujeedid 28 days uu dhooya. Waxa uga baahnaan lahaa Windows 7-ka kan aad ku shubanaa. 28 days markuu dhaafana mid kale ku shuba haddaa rabtid. Haddaa aragtidna crack ku isticmaal VMware ahaan sida ujeedid VMware ku isticmaaluna kan. Markastana ha iloobin Shadow Defender ha iloobin. Shadow Defender waa muhiim ha iloobina. Inta waxaan practice iyo wax aad gelin wali waa ujeedin systemka nadiif inuu yahay. Waa ujeedaa waxaan u dhanaa ransomware haystaa laakiin waxaa diidaa dadka inay confusion ku dhacaan. Waxaan dhan waa ransomware saa ujeediin. Kulli waa ransomware. Filekan invoice aa lahaa inta idin soo dhigaa. Filekan waxaa lahaa invoice aa lahaa. Waa document waxa waa document oo waxa waaye oo word ah waa.
document oo word waa asaga naftirkiisa xataa waa ku dareynaa cashirka document oo word uu ahaa sida ujeediin qof invoice qof kuu soo diraya waxaa ku dhahaa saaxiibkayga wordkan waxaa waaye bal ii fiiri bal adina dhuuti waa fiirinaya wixii dhag computerkaadi faylashaadi waxaa laga yaabaa inaad company u shaqaysid marka inaan war idinku dilo ma rabi cashirkeena bilaabayna cashirkan waxaa ku bilaabaynaa kow cashirka ku xig wuxuu noqoni doonaa sida antiviruska yani sida askaga celin lahayd waxaa lahay ransomwarekan hadda waxaa tusinaa ransomware ku ridaynaa bahalkan kadib sida u bixin laheena isla fiirinayna kulligeena marka midkaana bilaaba waxaa laga yaabaa kuwa qaar inay shaqaynin dhahan kuwa qaar waxay dhahaan net free ma rabnaa kuwa waxaa waaye qof midba sii waaye marka waxaa fiirinaynaa waxaa soo furaynaa kan already sida ujeediin wuu bilaabmay sida ujeediin kan waa kana meeshan kore hadda ujeedid kan kale ku xijinaynaa kan kale waa kana sida ujeediin sidaas waa already shaqadiisa inuu bilaabaa laga yaabaa sida ujeediin sidaas uu noqonaa kan lacagtaana rabaa decryption kugu sameynaa sida ujeediin kana galaynaa kana taabsanaynaa kadib enter your password to decrypt cancel so marka haddaan aragno faylasheena weli wallaahi billaahi waa kana sida ujeediin faalashi waa kuwana faalashi dhan wuu ku ciyaara midkan sida ujeediin midkan weli waxaa waaye waa midkii koowaad waa kii oo screenka midkaana hadhowti furaayo fiiriya kan hadhowti markaa furo kanna naftirkiisana waa furaa systemki sidaan u geli doonaa wax dhan ma arkaysid waxaana arki doontaa lacagtan meesha geli iyo passwordkan geli iyo numberkan wac waxaas ayaa arkaysaa hadda kan sidaa ujeedid faalasheeni dhan waa kana sawirada dhan sida u gala waa ujeedaa so marka kan caadi waaye caadi u bixini karnaa haddii aa furno avira camal haddaa furno dhahno install haddaa dhahno avira install garaynaynaa marka waa fiirinaynaa inuu systemka ka bixiyo kadibna waxaa isku dayaynaa inaan faalasheeni soo ceshano avira hadda saa ujeediin waa kana malware batchna waa gelinaa sidana waa isla daba sameynaa kana waa ka daba install garaynaa ka biiqina faalashan haddii wax gaaraan still backup ii yaalo kulli ma furfuro horta hore arka dhibaataday keenayaane kulli furfur kulli midka kulli systemkan waxaa rabaa inuu noqdo systemka ugu badan ee ransomwareka lagu fiiriyo waa kana wallahi soo soco kurid ransomwareka ka buuxiya systemka ka buuxiya waxaa laga yaabaa hadda kuwan caadiyo kuwa waxa waaye aska jiifaa jiro hadhowti markaa waa dimina waa sidaa fiiriya wixii dhici doona ma soo geli doono mar kale sidaanuu kale un dhihi doonaa insha allah adeertaan waa kana helper allaha shaqadiisa uu wataa midaa shaqadiisa wata sidaa ujeediin cmd-ga haddaa ujeediin midaa shaqadiisa iska wadadha shaqadaada hadhowti yaa is arkeenaye okay aa dhehenaa marka systemkii waa buuxinaye marka next aa dhehenaa malware byteska install aa dhehenaa already waa install gareye dheniyo finish dheh cancel dheh yes antimalwareka waa install gareye waa kana laakiin run as administrator dhehna malware bytes anti ransomware ujeediin antiviruska xataa waa kicin la'ana kasoo qaad adiga computerkaadu ku dhacayba kasoo qaadba computerkaadu ku dhacay
yaa adigo iska jiraynin uu ku dhacayba. Malwarebytes ka furaynaa, run as administrator haddana dhahaynaa. Fadlan ha iloobina subscribe inaad dhahdiin. Wallaahi bilaahi waa kana weli midaa shaqadiisa ka wato waa ogahay. Marka haddeertaan kana tegaynaa qaybta halii dulqaato. Waa ujeediin waxyaalo badan iska daba socdo crypto x waa ujeediin xx waa kana markasta waa lagaa celinaa abuu markasta aa furtid waxa dhan kulli waa ujeedaa. So marka waa sidaa wadaminaa computerka wax ku dhici doona fiiriya. Kan caadi waa midka waa mid yar aad bixin kartid waa haddeertaan laakiin faylashaadi weli waxaa waaye hadda waa daminaynaa waa daaraynaa bal fiiriya wixii dhaco. biya soo qabsanaa inta yara duubay biya yara soo qabsanaa oo ay ka saa ujeediin systemka weli wuu soo daarmanooyaa. Waxaa ka bixinaa waxaa rabaa qof kasta inuu ka faa'iidaysto videogan fadlan daawo ilaa dhammaadka hadduu rabo ha dheeraado. Waa video cilmi badan leh. Saa ujeediin haddeertaan weli waxaa waaye shaqadii waa kan sidaa ujeediin ninaa shaqadiisa dhamaystirta. So marka waxaas dhahaysaa dadka qaar waxay isdhahayaan niyo meeshaan x haddaa saartid ka waran. Waa kana faylash kii dabaalka ahaa oo waxa samayn waaya ka gadaalay saa ujeedid. Kii kale waa kana systemka dhan uu kaa qariyay. So systemkeena sidee ugu laabaneynaa. Marka waxaas dhahaynaa niyo bal mar kale restart gareyno intaa ka restart gareyneynaa. Restart aa dhahaynaa bal waxaa laga yaabaa inuu ka baxee. Saa ujeediin systemka weli waxaa waaye wuu damoyaa waa sugaynaa shutting down uu dhahoyaa. Fadlan haddii aad rabtid inaad practice garaysid ha iloobin maxaa la dhahayaa shadow mode muujeediin shadow mode waxaa waaye protection waaye no protection leh waa bis. Saa ujeediin systemka waa kana shadow defender waa kaas aan ku laabaneynaa haddana keen weli wuu wadaa shaqadii. Inta hadhooti markuu soo kaco safe mode inaa galnaa rabnaa. Safe mode waa kaasa qof kasto safe mode fahan. Fadlan systemka adi aa leedahay ha ku samaynin ransomware-kan haddaa rabtid practice inaad samaysid systemkaada ha ku samaynin. Aniga waxaa kusoo download gareeyay systemkayga caadiga ah kadib waa kusoo shubay ileen markaa galo maxaa la dhahayaa VMware markaa galo qadkayga wuxuu noqdaa daciif uu noqdaa qadkayga. Marka waqti badan igu qaadanaya inaan download gareeyo laakiin systemkayga caadiga waxaa waaye boobsiis waaye. IDM aa isticmaalayaa saa ujeediin internet download manager aqsuu soo download gareynaa kadib waxaa ku haystaa USB igu jiraan faylash sidaa ujeediin systemka haddana waa ku laabanay waxaanu dhahoyaa. Soo muujeedid wax been uu kaa sheegaa fiiri. We have detected spam advertises illegal sites with child pornography from your computer. This contradicts law and harm other network users. And in this case, we have to do next steps. Block access to desktop, block wax been waay. Lacag kaa rabaan lacagta sidaa ujeedid dollar ay ku dhaheen or sidaa ujeediin dollarkana dhiibaysiin ama eurodana dhiibaysiin 900 isku mid ay ka dhigeen. Email aa noo soo diraysiin ay ku dhaheen an codekaaga numberka waxay ku dhaheen 3 saac aa sugaysaa waa kuu soo jawaabeynaa. Waa wax feegay waxba lacag ha siinina. So marka haddeertaan maxaa ku xalini karnaa systemkeena hadda sidaan hadduu ku dhacay. Marka safe mode aa galaynaa. Safe mode waxaa ku galaysaa computerkaada kooda horashid kadib F8 taabo kadib F8 markasta ku celceli F8 ku celi kadib wuxuu ku keenaa waxyaalo badan ku keenaa. Safe mode aa galaysaa kadib systemka caadiga markaa safe mode galo isku soo laabaneynaa kulligeena. Saa ujeediin haddeertaan maka leexini karno systemkeena caadiga ma arkeyno. Our systemkeena our softwareka muujeedi. Markaa safe mode galaa isku soo laabaneynaa insha Allah.
sida ujeedin safe mode galaynaa halkaasa fadlan ha iloobina subscribe inaad aadin like iyo share comment ka dhiiba cashirka aragtiin in la sameeyo waa la sameynaa just waxa facebookgayga igu soo dira ama commentiga hoos fadlan sida ujeedin waa kuwana viruski antiviruski waxaan dhan waa ignore gareynaynaa sida ujeedin stepkana hadda joognaa mishiinkeeni ma ku laabani karno fadlan waxaa rabaa inaa ila socotid step by step sida u bixinayo antivirus meeshaan ma loo baahno stagekan antivirus ma loo baahno marka haddeertaan sida ujeedin starda taabaneynaa kadib inta imaanaynaa reg edit aa qoraynaa reg edit waa kana kor si fiican indhaha ugu hay waa kaasaa waa ku laabanaynaa inta imaanaynaa saa ujeedid software aa tegaynaa software markaa tagno saa ujeedid meeshaana ka fiirinaysaa softwarekaada hadduu yahay midkaada hebelow haddaa la dhaho inta hebelaa ka fiirine hebelowgaasaa ka fiirinaysaa haddii haysid kadib waa taabanaysaa delete aa dhehaysaa waa tegaysaa haddana waa laabanaysaa waxaa tegaynaa markan kale hoosa u soconaynaa microsoft inta ka fiirinaynaa microsoft saa ujeedin microsoft markaa joogno waa idin weyneynaa microsoft markaa joogno windows hoosa aadaynaa windows aa taabanaynaa hoos w aa tegaynaa windows aa taabanaynaa windows waa kana meelahan kore waa windows where is windows waa kana windowski current version aa tegaynaa kadib sida ujeedin hoosa u soconaynaa waxaa aadaynaa meelay ku qoran tahay run waa kana run waxaa ku jiro malware bytes iyo waxaa ku jiro iyo vmware aa ku jiro sida ujeedin run oneskana wax kuma jiraan run oneska inuu ku jiraa laga yaabaa so marka hadduu ku jiro waxaa laga yaabaa run hadduu ku jiro waa taabanaysaa sida kanoo kale malware byteska waa taabanaysaa delete aa dhehaysaa wuu ka baxaa haddana run oneskaa tegaysaa hadduu wax ku jiro waa taabanaysaa delete shaqadayna hadda waa dhameynay so stepskan fadlan hore u soco qofka oo ugu soo celinaa dadka ugu soo celinaa oo haddana laga yaabaa inaysa fahmin waa ugu soo celinaa kulli waa ku soo celinaa marka intaa haddana kasoo bilaabaa local key aa tegaynaa waxaa tegaynaa software aa tegaynaa inta ka fiiri hadduu midkan ku jiro kulli isla wada delete gareey ku jiro sooma ma ka weyse kadib microsoft haddana tag hoos u soco windows tag windows raadi waa w-da meesha ugu koraysa waaye sida ujeedid windows haddaa tagno kor haddaa u laabto microsoft markaa tago hoos haddaa u socotid waxaa arkaysaa wuu furan yaha laga yaabaa waa kana saa ujeedid windowska wuu furan yaha kadib inta sidaa ujeedid windows markaa tagtid current version aa sii taabanaysaa hoosa u soconaysaa run aa dhehaysaa run labada run aa ka fiirinaysaa run ones iyo run caadiya ka fiirinaysaa run ones iyo run caadiya kadib waa kasoo baxaynaa stepskaas waa dhameynay stepkan kala imaanaynaa computerkeeni inta imaanaynaa failasha haddeertaan waa kuwana kuwa qaar korkaanay saaran yihiin kulli delete garay ma u baahnin kuwan inta imaanaynaa markaas kadib waxaa dhehaynaa organize aa imaanaynaa folders and options aa tegaynaa view aa dhehaynaa kadib show hidden files aa dhehaynaa hoos aadan usii soconaysaa waxaa taabanaysaa yes aa dhehaysaa waxaa cusub no aa dhehaynaa waxaa taabanaysaa hide protected operating system file recommended aa loo dhahay laakiin tiktok ka qaadaysaa waxaan warningkaanu ku keenaa yes aa iska dhehaysaa apply aa dhehaysaa kadib waa ka soconaysaa kadib waxaana kuu soo baxaya userkeena tegaynaa userkeena jaamac maa lahay cabdiweli aa lahaa waa kana computerka kadib waxaa tegaynaa intaa ku laabanaynaa haddana waxaa tegaynaa update aa tegaynaa localkan inuu ku jiraa laga yaabaa waa kuwaana kulli waa iska delete gareynaynaa sida ujeedid wax kale microsoft aa gelaynaa laga yaabo meelaha inuu galo windows waa iska caadi wax dhiba ma jiro call
visual file no dhib ma jiro meeshan waa kasoo baxaynaa haddana tem romin waxaa gelinaa rominkaana gelinaa haddana waa ujeediin si inuu ku jiro waa ujeediin fileki kii horaa ku jiro laba ransomware systemkeena ku jiro hadda sidaa ujeedeen midna waa kanaa sidaa ujeedeen hadeertaan waa kaasa systemkii at least wax waa ka bixinay intaa haddana kusoo laabanayna sidaa ujeediin starda dhehnaa haddana run aad taabanaysaa run haddee run ee lahayn intaa waxaa ku qoraynaa ms config aa dhehnaa waa kana haddii aa run dhahdid asla taabatid windows keyga ee artan waa ku qori kartaa kadib intaa imaanaynaa start upkaa taabanaynaa hide all microsoft aa dhehnaa processka tegaynaa kowda hore serviceska haddaad tagtid kulli ka qaadbo dhib malah ka qaad kulli kadibna waxaa dhahdaa kuwa u baahan tahay sida VMware-ka waa u baahannahay maxaa kaloo u baahannahay Malwarebyteska caadi waa u baahannahay kan kale ma naqaano kan kale ma u baahnin Avira waa naqaanaa laakiin ma u baahnin waa ka soconaynaa start up aa tegaynaa haddana start up waa kuwana games iyo waxaa soo baxaaya kan ma u baahnin kan hoose ma u baahnin Malwarebytes iyo kan ii select gareen gamesna ma u baahnin so hadeertaan waxaa dhahaa apply aa dhahaa okay aa dhahaa restart aa dhahaa computerkii wixii ku dhici doona aa fiirinaynaa marka inta waxaa filaa inaa ka yara bixineen laakiin systemka aa galno systemkana markaa galno antiviruska isticmaalaynaa waa ka bixinaynaa waxaa isku dayaa faylashii naga baxay inaa soo celiyo decrypt aa ka dhigaa isku dayaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo waxaa ka baryaa ilaahayna inuu igu saacideeyo waa kana wax weyn maahan ransomware haddaa aragtiin sidaa ujeediin systemkeena caadiyuu kusoo laabtay baalkii waa bixinay saa ujeediin waa bixinay so markii waa kuwana wixii kuwiisi kalena waa kuwana wixiisi kale saa ujeediin wixii inta saarnaa iyo kii naga soo horbaxaaye kulli waxaa waa marka waa bixinay antiviruska hadda furaynaa Malwarebyteska furaynaa ransomware saa ujeediin hadda wuu noo soo kacoyaa starda dhehnaa wax yaraa sugaynaa kanna waa furaynaa Hitman Pro inaa soo download gareeyo waay wax yar qadka waa yara maqan yahay marka waxaa dhahaa troubleshoot aa dhahaa haddaa qadka waa kana troubleshoot aa dhehnaa DHCP ga kadib sax apply fix waa kana wax yar kadib uu noo soo laabanaa qadkeena saa ujeedid start protection aa dhehnaa haddaa rabo waa jaraa kadib intaa tagaa run as administrator aa dhahaa abtay waa ka xumahay inta imaana waa kana left click aa dhehnaa run as administrator okay aa dhehnaa kadib start your license failed to activate u dhah mar kale install gareynaynaa dhib ma laha waxaa waaye faylashi so marka waa kuwana intuu yaalaa mar kale install gareynaa yes aa dhahaa next aa dhahaa waxaa kula talin lahaa inaa isticmaashid Hitman Pro-na inaa isticmaashid waa following application automatically close aa dhehnaa closing waa kana hadeertaan wada kana waa sii install gareynaynaa run as administrator next aa dhehnaa next connecting to the internet finish aa dhehnaa kana waxaa waa uu download gareynayaa start aa dhehnaa kan start aa dhehnaa waa kana marka kan sida ujeediin intaa geleynaa waxaa soo download gareynaynaa Malwarebytes anti malware google.com
download malwarebytes marka waa soconeynaa hoos file hibo ka download gareynaa kana download dhehna free version waa sii wadaa waxaa kasii daba oo kale intaa tagaa haddana halii yaro dulqaato Hitman Pro waa soo download gareynaa waxaa rabaa Hitman Pro free soo socona Hitman Pro caadi ah waa kana malwarebytes run dhehna run sida ujeedna kan wuu wadaa shaqadiisa ninkan kale wuxuu sugayaa ransomware kale aashidno kayaa dhehna Hitman Pro waa kana sida ujeediin Hitman Pro wuxuu ku fiican yahay waa online asagana run dhehna kana install gareynaa marka accept dhehna next hadaa dhahno next dhehna next install dhehna marka sida ujeedno waa kana marka waxaa dhehna free launch okay waa kana yes dhehna marka kulligood waa wada fiirineynaa kulli qofkii wax badan soo qabtaa fiirineynaa next dhehna sida ujeediin kan waxaa waaye ma u baahnid inaad systemka ku shubtid xataa accept dhehna next dhehaysaa hadaa rabtid yes dhehaysaa computerkaada hadduu rabo inaad ku shubtid no dhehayna anaga hadda ma u baahnin waa kana wuu bilaabay scankii wuu bilaabay marka kan scankii wuu bilaabay sida ujeediin isla markii wuxuu soo tuuray tracking cookies waxaas uu soo tuuray sida ujeediin waxyaalo qaar trojan sida ujeediin waa kana kii kale checking updates uu ku hayaa scan waa ka daba xijineynaa waa fiirineynaa marka secure pluski uu soo kacay isagana continue waa dhehnaa saa ujeediin kan wixii dhan uu soo tuuray waa ujeediin ransomware malware wixii dhan waxaa laga yaabaa waxa uu isticmaalayo softwareadan dhan waxa uu isticmaalayo waxaa waaye antivirusyadan dhan waxa uu isticmaalayo waxaa waaye Hitman Pro hadduu wax qabto midkan kale wax inuu misgareeyaa laga yaabaa oo wax uu qaban waayo kan kale waxaa laga yaabaa inuu wax qabto kan kale uu qaban waayo marka waxaa waaye kulli waa wada isticmaaleynaa saa ujeediin kan wuu wadaa plus kan wuu wadaa malwarebytes waa kana weli wax ma detect gareenin weli wuu wadaa memory scan wuu wadaa waa kana malwarebytes saa ujeediin waa kana shaqadii wuu wadaa oo labo saa ujeediin labo Hitman Pro meequu maroyaa asla fiirineynaa yareynaa kan inuu yeelayo kala fiirinaa okay intaa dhigeynaa kanna intaa dhigeynaa marka sida ujeediin waa kana kan meequu maroyaa 75 uu maroyaa 75 uu maroyaa maxaa la dhahaye Hitman Pro-ga kanna wuxuu maroyaa 4 kanna waa sugeynaa kan waxaa waaye shaqadiisa ransomware-ku kaa celinaa koow nagala rabay inaan sameyno laakiin dhib ma lahan kan waa iska xireynaa stop dheheynaa ilaan hadda ma u baahnin raalli ahow riski inuu ku jiro waa rabnaa computerkeena marka riski uu ku jira uu taagan yahay koow lagaaga baahnaa dheh so markaad jirtaan saa ujeediin 4 uu dhahoyaa ninkan kanna meequu maroyaa 75 marka kii uu dhameeyey shaqadii Hitman Pro Avira maxaa ku dhacay Hitman Pro 75 okay kulligooda sidaa ujeediin meelahay ku jiraan mujeediin haddaa kan fiirisid camal
wuxuu ku jiraa magacaaga iyo wuxuu ku jiraa C drive-ka userka ku jiraa kadib update local term buu ku jiraa kadib wuxuu kusii jiraa VMware magaca qofka kadib wuxuu kusii jiraa documents meelahaas uu kusii jiraa haddana waa meel dheer hadda wuu wadaa 4 luu qabta bis maxaa lahayaa waa kana systemkii kiya u baahneen horta asagaa u baahanaa kow kana secure applies waa fiirineynaa wuxuu dhaho sida ujeediin 5 ninkan soo qabtay kan waa ujeediin 99 uu marooyaa marka waa kana sida ujeediin waa kana softwarekan secure a plus allaha marka secure a plus kan wuxuu ku fiican yahay marka wax install gareynaysid uu ku weydiinaa ma xirnaa mise waa joojinaa marka sida ujeedaa dartaan wax muusa soo saarin ignore quarantine waa kana marka waxaa dhahaynaa app settings intaana ku jirto avg avira bitdefender waxaa ku jiro column msoft asset microsoft ku jirto security mkfa ku jirto total defense ku jiraan waxaan dhan waa wax fiir waxa waayo many antivirus oo hal meel lagugu keeno waa hal meel lagugu keeno so marka scan aan sameyneynaa marka scan hadirtaan saa ujeedid wuu wadaa weli history ignored wuu wadaa weli laakiin waa sugeynaa home waa kana wuu dhameeyey maxaa la yidhaha malware bytes wuu dhameeyey waa kana ka baxeynaa malware bytes wuu dhameeyey 6 uu keenay sida ujeediin wuxuu dhahay trojan file coder kan waxaa waaye trojan ransomware waaye kan waa ujeediin ransomware kan kale waxaa waaye cryptolocker saa ujeedid hitman bro wuxuu sii marooyaa 110 uu sii marooyaa sida ujeediin 110 uu sii marooyaa midkan weli wax ma soo saarin weli laakiin waxaa laga yaabaa marka ugu dambeyso inuu wax soo saaraa laga yaabaa oo hal sugo 0% waa sida ujeediin scanning uu wadaa marka fiirineynaa midka ugu khatarsan malware bytes ma ugu khatarsan secure a plus ma ugu khatarsan maxaa kale ugu khatarsan maxaa lahaye magaciisa maxaa lahaa hitman bro ma ugu khatarsan hitman bro shaqadii wuu dhameeyey waxaa waayu dhahay 111 ah ku jirto systemkaaga sida ujeediin hitman bro 11 uu keenay kii kale waxaa waaye waa sugi waaye stopaa dhahay adiga waxaa laga yaabaa inaa weli sugtiin marka videoga marbi inuu dheeraado marka waxaa dhahaynaa next aa dhahaynaa kulli wuu bixinaa restore point uu sameynayaa midkan kalena waxaa dhahaynaa kan markuu dhameeyo next aa dhahaynaa remove aa dhahaynaa waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho product keygaaga geli free aa dhahaynaa email waxaa gelineynaa email aa gelinaa laakiin oo fake ah gelinaa hotmail.com aa dhahaa hotmailka waa qalday emailkaada daaratid aa gelin dhib ma leh hotmail.com isla sidii isla gelina haddana confirm garey 1234h at
hotmail.com aa dhehenaa product notification ay ku dhahay xayeysiina u isticmaalana ay taagan yihiin laakiin aniga wax feega idin siiyey nimayan sida ujeediin wax yar kadib waxaa waaye wuxuu ku dhahaa caadi wuu soconaa waxaa laga yaabaa email inuu diraayo laga yaabaa laakiin waan sugeynaa so malware byteska wuu dhameeyey saa ujeediin inaan restart gareeyaa la rabaa u dhahaya computerkaaga halkan sida ujeediin product successful uu ku dhawayaa next aa dhehenaa kadib waa kana preparing removal uu dhawayaa kadib computerkaa soo shidayna waxaa isku dayaynaa failasheena inaan laakiin file malware bytes waxa waaye please wait during removal September may terminate okay wuxuu dhahay removalka inta la wado waxaa laga yaabaa software qaar in la damiyo iska damaan sidoodi marka waa sugeynaa marka haddama damiyada waxaa rabtiin ujeediin wax ma taabani karno meeshaan haddaa dhaho left click waxaa waaye wax dhan please wait uu dhaho laakiin waa iska sugaa so marka midkan wuxuu dhahoyaa in la restart gareeyaa la rabaa will you like to restart now no waa dhehenaa hadda muu baahnin raalli ahow iska bax markaas adna iska bax systemki sidaa ujeediin waxa dhan waa laga bixiye removal wuxuu dhahay kan waxaa la diminaa markii midka ugu koreeya waxaa la diminaa kuwa qaar waxaa la diminaa marka computerka lasoo shido marka next aa dhahaa reboot aa taabanayna marka wuxuu taagan yahay malicious software was partially removed from your computer restart your computer to complete the removal reboot aa dhehenaa waxaan arkaynaa computerkeeni siduu noqdo markaas kadib waxaa isku dayaynaa failasheeni inaan soo ceshano waxaa laga yaabaa waxaa waaye chanceskeena waxaa waaye like 1% camal inaan failasheena helno waaye sida ujeediin systemka wuu soo kacoyaa VMware cashirkan ku sameynayay marka akhyaarta kulligiina waxaa nigala rabaa hadduu idinku dhaco videoga download gareysta saaxiibadiina la sheega gareeya ha iloobinina subscribe inaa saartiin videoga waxaa waaye dad badan waxaa arkay oo ransomware-kan uu ku dhacay waxaa laga yaabaa sida aan u sameeyey unique inay tahay oo ay ka duwan tahay dadka kale marka waxaa rajeynaa inaa saaxiibadiina la sheegi gareysiin sida ujeediin haddeertaan haddana hitman pro aa marka la sameynayna hitman pro saa ujeediin labadan lama cunin windowskeeni wuu shaqeynayaa normal waaye laakiin failasheeni ma haysano marka kasoo qaad haddii aa haysatid failashaadii oo backup ah marar badan haddaa isticmaali jirtay waxaa isticmaashaa shadow explorer software la dhaha jiro oo ku caawini doono oo waxaa laga yaabaa failashaada inuu backupka kasoo saaro sidaas ku heshid marka tutorialka soo socdana waxaa isku dayaa inaa soo geliyo anigoo decryption ku sameynayo failashi fadlan like subscribe iyo comment share gareena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu